cutubkan saddexaad wuxuu ku saabsan yahay theory of consumer behavior dabeecadda aragtida dabeecadda muxuu ahaa isticmaalaha macmiilka waxaan arki doonaa dabeecado badan oo ay leeyihiin muxuu ahaa ama aragtiyo badan oo ku saabsan dabeecadda consumer preference qaybtan waxaan arkaynaa doorka door biditaanka iyo sidoo kale dooqa iska leeyihiin muxuu macaamiishu si ay u kala door bidaan agabka consumerku waxaa la yidhi wuxuu sameeyaa choices by comparing bundle of goods isagoo isbarbar dhigay baa leeyahay xirmooyin agab ama agabyo kale isagoo kala duwan isbarbar dhigay marka waxaa la yidhi laba kasta oo producti oo la adeegsan karo consumerku laba mid un weeyaan in one product ama hal muxuu ahaaye wax soo saar inuu ka doorbido weliba si adag uga doorbido midda kale ama inuu go'aansado in ayna u kala duwaneyn oo consumerka labada product isticmaalkoodu hay isugu mid u tahay mid isticmaalaba qanaacada utility-ga uu ka helayaa ay isku mid noqonayso marka calaamadaha ayaan adeegsanaa si preferenceska uu sameynayo consumerku aan ugu muujino calaamadan hadda ayaan adeegsanaa baa we use the symbol calaamadda waxaan adeegsanaa to mean that one bundle is strictly preferred to another si aan ugu sheegna baa layidhi in macmiil ama is adeegsade uu laba product midka kale si aad uga doorbido saa darteed haddii labadan product x iyo y ah x iyo y ka soo qaadno laba product haddii qaabkan loo qoro calaamadaas aan adeegsano waxay ka dhigan tahay waxaa la yidhi should be interpreted as saying that the consumer strictly prefers x y waxaa la yidhi waa inaan u turjumanaa in consumerku uu si aada ama si adag uga doorbido x y sidoo kale haddii consumerku ayna u kala duwaneyn isagana waxaan isticmaalaa baa la yidhi if the consumer is indifferent between the two bundles of goods haddii labadan agab ayna u kala duwaneyn calaamadan ayaan isticmaalaa sidanaana u qoraa marka indifference macnaheed waxay ka dhigan tahay the consumer would be just as satisfied consumerku wuxuu noqon baa la yidhi mid u qanacsan according to her own preference inagoo eegayna dooqeeda ama dooqiisa haddii consuming the bundle x as you would be consuming bundle y waxaa la yidhi wuxuu u qanacsanaan inuu product x isticmaalo sidii uu u qanacsanaan lahaa haddii uu isticmaalo product y uma kala duwanay ka dhiganta sidoo kale haddii consumerku baa la yidhi prefers or is indifferent between the two bundles waxaa la yidhi haddii uu doorbido ama ayna u kala duwaneyn marka waxaan dhahnaa ruuxani weekly prefers x y xogaa ka yar doorbidaa ma adko strictly maar laakiin weekly prefers x y marka calaamadan sidan ayaana loo qoraa marka waxaa jirta the concept of utility waxaa la yidhahdaa qanaacada iyo uu ruuxu ka helo muxuu ahaaye isticmaalka agabka ayaa la yidhahdaa utility waxaa la yidhi economists use the term utility to describe the satisfaction or pleasure derived from the consumption of a good or service waxaa la yidhi dhaqaalayahanadu ereyga utility ama tibixda utility waxay u adeegsadaan inay ku qeexaan satisfaction qanaacada ama farxadda uu ka timaada quudashada ama isticmaalka agab ama adeeg ee uu shakhsigan isticmaalihii ka helo marka si kale haddaan u dhigno utility waxaa la yidhi waa the power of the product to satisfy human wants waa awoodda ay productigu u leedahay xusaarkan u leeyahay in uu qanciyo doonitaanadii bini aadamka marka ereyga utility markii la qeexay baa la yidhi waxaa la yidhi it's important to bear in mind the following points waxaa la yidhi qodobadan soo socda inaad maskaxda ku hayso ayaa muhiima utility and the usefulness are not synonymous waxaa la yidhi ereyga utility iyo usefulness ma aha laba erey oo isku macno ah qanaacada iyo sidoo kale faa'iidada uu shayga u leeyahay fiicnaanshaha uu shayga iska leeyahay muxuu ahaye laba erey isku mid ah ma aha tusaale ahaan buying things by Picasso may be useless functionally but offer great utility to art lovers waxaa la yidhi sawirada ama sawir gacmeedyada uu samayn jiray ama sameeyay ninkan la yidhahdo muxuu ahaye Picasso la yidhahdo waxaa laga yaabaa baa la yidhi shaqo ahaan inay noqdo useless kuwaan wax faa'iida lahayn laakiin qanaacad fara badan inay siiyaan baa dhici karta maxay dadka farshaxanka iyo sawir gacmeedyadii waxaa jecel
سادرتيد usefulness waa product center usefulness ka ama waxani inuu useful noqonayo inay kale waxay ku xiran tahay product ama useful noqonayo wax faa'iido leh noqonayo ama noqonayo laakiin whereas utility is consumer centered laakiin utility consumer ka ama adeegsadaha ku xiran tahay marka wax qanaacada uu adeegsaduhu ka helayo muxuu ahaayay product ayaa la yiraahdaa utility sababta utility waxay ku xiran tahay consumer sababteed baa laga yey sawir gacmeedyada oo Picasso sameeyo ay dadka artist-ka jecel utility badan u siinayso laakiin shaqo ahaan iyo laga yaabo inay faa'iido lahayd sidoo kale waxa muhiim ah inaad maskaxda ku hayso utility inay tahay subjective macnaheedu waxa weeyaan utility-ga qaabka aad u aragto iyo qaabka shakhsiga kale u arkay way kala duwanaan kartaa ama qanaacada aad ka helayso product iyo qanaacada uu ka helayo shakhsi kale inay kala badnaadaan baa laga kala duwanaadaan objective ma waa subjective utility sidoo kale utility waxa la utility can be different at different places and time utility-ga ama qanaacada aad ka helayso hal shakhsi uu ka helayo isla hal product waxa laga yaabaa inay kala duwanaato goobaha kala duwan iyo sidoo kale waqtiga kala duwan koob shaaha salahan satisfaction ama qanaacada utility aad ka helayso waxa laga yaabaa subaxdii aroorta ama gelinka hore iyo sidoo kale casarka inay isku mid noqonin baa laga yaabaa laba waqti laba goobood kala duwan sidoo kale qanaacada aad ka helayso inay kala duwanaadaan marka waxaa jira qaab kala duwan oo loo cabiro muxuu ahaay utility-ga loo cabiro waxaa jira baa leeyahay laba qaab waaweyn oo loo cabiro ama la super badhigo consumer utility qanaacada uu shakhsigu ka helo muxuu ahaay product-ga marka waxay kala yihiin labadaas waa cardinal iyo ordinal approach labadan mid tir ahaan tirada lagu cabiro 1 2 3 intaas oo util buu ka helay midna waa darajo wala darajo siirey oo tir ahaan lagu cabiro marka waan arkaynaa waxa la according to the cardinal utility theory inagu eegina aragtida cardinal utility is measurable by arbitrary unit of measurement called utils halini tiro halbeegye arbitrary oo muxuu ahaa ayaa lagu cabiri karaa oo ah lagu magacaabo utils qaabkan loo dhigi karaa 1 2 3 ilaa iyo sii wada taageerin hal util ruuxa ka helay agabka 2 10 util tusaalahan we may say that the consumption of an orange gives billion 10 utils waxa laga yaabaa in dhahna baa leeyahay isticmaalka orange-ga ama liin macaantu bilan waxay siisaa utility gaaraysa 10 utils bananaguna wuxuu siiyaa 8 util marka halkan labadan product midkeeba utility badan siiyan waan cabiri karaa super bari karaa midna waa 10 midna 8 sadarteed and so on waa sii socon kartaa from this we can assert that bilan gets more satisfaction from orange than from banana sadarteed halkan waxaan ka cadeyn karaa baa leeyahay in bilan ay qanaacad ka badan ka hesho orange-ga mid ay ka hesho banana-ga maadaama 10 ka hesho midna 8 ka hesho marka cardinal utility theory waxay leedahay utility-ga ama qanaacada product-ga laga helaa tir ahaan baa loo cabiri karaa laakiin ordinals iyagu waxay leeyihiin utility is not measurable in cardinal numbers tirooyinkan caadiga ah 1 2 3 wax lagu tirsado kuma cabiri karo laakiin the consumer can rank or order the utility he derives from the different goods service waxay leeyihiin laakiin consumer darajasiin uu darajaynka darajooyin u sameyn karaa oo tana qanaacada ugu badan tana ka heshtan ama uu say u kala sareeyaan buu u habeyn karaa qanaacada uu ka helo agab kala duwan iyo sidoo kale adeegyada kala duwan marka mid kasta waxay leedahay assumptions ay ku dhisan tahay muxuu ahaay ma ka soo qaadiyo ay ku dhisan tahay baa jira ama aragti kasta assumptions marka cardinal utility theory ay ku dhisan tahay waxa kamid ah rationality of consumers caqlanimada consumer-ka waxa ka dhigtay consumer-ku waa markasta ujeedadiisa uu koobaad waxa weeyaan inuu si sare u qaado muxuu ahaa utility-gu qanaacadan ka helay marka waa ruux caqli leh waxa ka dhigtay caaqila utility sidoo kale is cardinal measurable waxay leeyihiin tiro caadi ahaan ayaa loo cabiri karaa sidoo kale waxaa kamid ah assumptions ku dhisan tahay constant marginal utility of quantity marginal utility waxa la yiraahdaa utility-ga aad ka hesho shay kasta oo dheeri ah markaad isticmaasho shay product-ga dheeri ah halka shay dheeri ah isticmaasho utility-ga aad ka hesho ayaa la yiraahdaa muxuu ahaay cardinal utility marginal utility marka marginal utility-ga lacagta laga helay markasta waa constant waa joogto waxa ka dhigtay marginal utility waxa laga yaabaa marka qaarkood inay hoos u dhacdo laakiin marginal utility-ga iska leedahay lacagtu waa constant waxa ka dhigan tahay lacagta bisha bilowgeeda
tusaalahaan qadar lacagoo isku mid ah bisha bilowgeeda utility-ga aad ka helaysaa iyo bisha dhammaadkeeda waa isku mid waqtiyada kala duwan isku mid marka marginal utility-gu hoos uma dhacayso lacagtu iska leedahay waa constant xilli kasta sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa ama assumptionskeeda waxaa ka mid ah diminishing marginal utility-ga caadiga ah marka lacagta laga reebo productska kaloo dhani qanaacadaad ka helaysaa markaas hoos bay isu dhacaysa waxay ka dhigan tahay shay haddaad tusaalaan wax aad isticmaalayso aan lacag ahayn markastoo hal dheeriya isticmaasho qanaacadii aad halka dheeriga aad ka helaysa waa sii yaraanaysaa hoos bay usii dhacaysaa hoos bay usii yaraanaysaa total utility-ga ay iska leedahay bay yidhahdeen basket of goods oo ahaa xidhmooyin ama sallad agab ama agab dersin tusaalaan agab waxay ku xidhan tahay keli markasta qadarka ay iska leeyihiin individual commodities ku dhex jira basketka individual commoditiesku hadday fara bataan utility-guna way la badanaysaa hadday yaraadaanna waa la yaraanaysaa marka waxaa jira total iyo marginal utility qanaacada guud ee aad ka helayso productigan oo dhan isticmaasho iyo sidoo kale midda halkii agab ee dheeri isticmaasho ka helayso marka total utility-ga waxaa la yidhahdaa waa total satisfaction a consumer gets from consuming some specific quantities of a commodity at a particular time waxaa la yidhahdaa waa total satisfaction waa qanaacada guud ee uu ka helo consumerku isticmaalka agab gaara at a particular time weli waqti gaara marginal utility-guna waxaa la yidhi waa the extra satisfaction waa qanaacada dheeriga ee consumerku uu garwaaqsado markastoo isticmaalo muxuu ahaaye an additional unit of product qayb dheeriya oo ka mid ah muxuu ahaaye productiga qaybtaa dheeriga qanaacada dheeriga ay wadatay ayaa la yidhahdaa maxaa marginal utility marka mathematical xisaab ahaan marginal utility waxaa lagu cabiraa baa la yidhi change in total utility oo loo qaybiyey change in quantity marka waxaa la yidhi si aan u qeexno ama u sharaxno xiriir ka dhexeeya total utility iyo marginal utility-ga tusaalahan let's consider the following hypothetical example tusaalahan fiirino tusaalahan malaawaalka quantity-ga tusaalahan xaggan lagu qoray total utility-na xaggan ku qoray marginal utility-na saas ku qoray marka halkan waxaad ogaan kartaa total marginal utility markasta inay tahay change in total utility oo loo qaybiyey change in quantity waxay ka dhigan tahay total utility-ga labaad oo laga jaray total utility-ga koowaad oo loo qaybiyey quantity oo laga jaray quantity 1 marka graphically ama graph ahaan muxuu ahaaye tabelkaa kore waxaa loo qeexi karaa bale sidan soo socotaa loo qori karaa marka haddaba waxaa la yidhi sawirkan sidaan ka aragnaba mar kasta oo total utility-gu ay kordhiso marginal utility-gu waa positive sidoo kale total utility markay maximize tahay meesha ugu sarreysa gaadho marginal utility-gu waa 0 sidoo kale total utility-gu marka ay hoos u dhacayso marginal utility waa negative waxaa jira haddaba law of diminishing marginal utility xeerka marginal utility-ga hoos u dhacaysa markaas marginal utility-ga ama utility-ga aad halka productiga dheeriya aad ka helaysaa inay hoos u dhacayso waana hore waxaan soo aragnay marginal utility-ga iska leedahay lacagtu inay iyadu constant waa products kale laga hadlay the law of diminishing marginal utility wuxuu sheegayaa as the quantity consumed of a commodity increases mar kasta oo agabka tirada agabkeed quudanaysa ay sii badato per unit time waqti go-an waqti gaara the utility derived from each successive unit decreases utility-ga aad ka helaysaa halka agab kasta oo isku xiga way sii yaraanaysaa midba mid ka dambeeya ayuu kasii yaraanaya muxuu ahaay utility-ga aad helaysaa marka consumption of all other commodities remaining constant waa haddii isticmaalka agabyada kaloo dhan ay constant yihiin oo halkaa product keli aan ku xisaabtano si kale haddaan dhigno the extra satisfaction that a consumer drives waxaa la yidhi qanaacada dheeriga ee consumerka uu ka helo isticmaalka agabka declines hoos ayay u dhacdaa as he or she consumes more and more product mar kasta oo quuto agabka qayb wax dheeri ah mar kasta oo sii quuto uu sii adeegsado in a given period of time waliba waqti cayiman uu ku isticmaalo marka law of diminishing marginal utility wuxuu ku salaysan yahay isaguna assumptions kan soo socda midda koowaad waxa weeyaan consumerku waa rational waa caqlaani waa caaqil ruux caqligiisa adeegsanaya oo markasta ujeedadiisa koowaad ay tahay muxuu ahaa inuu utility sano qaato consumerku sidoo kale consumers waxaan ka soo qaadaynaa in consumerku uu isticmaalo identical or homogeneous product isku mid ah isku kaana haddii kala duwan yihiin dee muxuu ahaay assumption isku marginal utility-ga hoos u dhacaysa muxuu ahaay kuma salayn community-ga uu sheegan ruuxan adeegsanaya waa inay noqoto baa la yidhi
similar quality waa inay noqoto mid way yeelataa tayo isku mid ah ama color design etc midab iyo sidoo kale naqshad isku mid ah waa inay tahay etc wixii kale waxyaabaha kale la mid ah sidoo kale there is no time gap in consumption of the good waa inuuna jirin baa layidhi waqti u dhexeeya isticmaalka agabka oo ay xiriir ahaayeen the consumer test or preferences remain unchanged waxaa layidhi testiga ama dooqa iyo sidoo kale doonitaanka muxuu ahaayey iyo sidoo u kala doorbidaya agabka macmiilku sidoo kale iyaduna waa inay tahay mid aan isbedelin oo joogtaa waa inay tahay ordinal utility waxaa layidhi waa theory which operates under the assumption that utility from different units of good or between different goods need only be rankable not be shared hore baan soo aragay ordinary utility waxaa layidhi waa aragtida muxuu ahaay ku salaysan ama ku shaqaynaysa assumptionka ah in utilityga laga helo different unitska iska leedahay agab ama agab qaybaha kala duwan ee iska leeyahay agab ama laba agab oo kala duwanay kaliya inay tahaan mid la darajayn karo laakiin aan tira ahaan loo cabiri karin marka haddii consumerku waa layidhi gets more utility from bundle A then from bundle B waxaa layidhi haddii productiga A ah xidhmada A haddii uu ka helo qaraaco ka badan midda uu B ka helayo waxay ka dhigan tahay the consumer will rank bundle A above bundle B consumerku A ayuu ka sarreysiin darajo ahaan B laakiin intayn leegoo tira ah oo intayn leeg buu ka jecel yahay lama cabiri karo sidii cardinalka kale marka his or her need is not known by how much A is preferred waxaa layidhi laakiin lama garanayo intayn leeg buu A B ka doorbida laakiin inuu A ka darajo horeyso unbaan sheegi karaa marka assumptions bay iyaduna ku dhisan tahay kasoo qaaday iyaduna sidoo kale ku dhisan tahay maxaa ordinal utility rationality sida tii hore oo kale iyaduna rationality ay ku dhisan tahay sidoo kale waxaa ka mid ah component ordering si dhammaystiran in muxuu ahaay ruuxani u habeeyo oo productskan uu darajasiin uu sameeyo consistency joogtani waxay ka dhigan tahay laba product mid unbaad midka kale ka doorbida hal waqti labadaba midkan kana ka doorbida kana ka doorbida ma noqonayso tusaale ahaan haddii A aad B ka doorbido isla waqtigaana sidoo kale ma odhan kartid ama ma dhici karto inaad muxuu ahaay B-na aad A ka doorbido ama B baad A ka doorbido ama A baad B ka doorbido laba isma dhici karto hal mar sidoo kale transitivity waxay ka dhigan tahay haddii saddex product aad mid ka doorbido mid kalena waxay ka dhigan tahay way isu gudbayaan tusaale ahaan haddii A aad B ka doorbido B-na aad C ka doorbido waxay ka dhigan tahay A-na sidoo kale waxaad ka doorbidaa C salaan haddii B ka weyn tahay B-na C ka weyn tahay A-na C way ka weyn tahay non citation waxay ka dhigan tahay qaybtan waxa weeyaan waa consumerkani weli waa inuuna gaadhin muxuu ahaaye heerkii ugu sarreeyey saturation point waa inuuna gaadhin oo weli uu sii isticmaali karo muxuu ahaaye productiga diminishing marginal rate of substitution waan arki doonaa iyaduna hoos u dhac assumptionkaas iyaduna ku dhisan tahay marka waxaa jira indifference set curve iyo map indifference set waxaa weeyaan waa table baa muujinaya various combinations of two goods isku xidhanno kala duwan ama qaabo kala duwan isku xidhan maxaa agab laba agab kuwaasoo siiya baa layidhi equal level of satisfaction to the consumer ama utility isku mid ah siiya baa layidhi consumer marka waxaa layidhi waa maadaama commoditieskan mid kastoo ka midii uu qanaacada uu ruuxa siinayo isku mid yahay saa darteed baa la leeyahay waa indifferent among them marka waa table muujinaya indifference dadkuna muxuu ahaayey isku xidhanka labada agab kala duwan marka indifference curve iyo indifference mapka iyagana sidoo kale qaab graph ahaan waa loo muujin karaa marka waxaa jira properties isku leeyahay indifference curves waxaa ka mid ah indifference curves waxaa la yidhaha negative slope waxay leeyihiin janjeer ama slope muxuu ahaayey negative waa downward sloping to right hoos ayuu janjeera dhanka midig sidoo kale indifference curves waxaa la yidhi waa convex to the origin waa curvigu waxay dhanka originka ama dhanka xudunta ayay originka 0,0 ayay u yihiin convex dhankaas ayay toolu leeyihiin convex iyo concave sidoo kale a higher indifference curve is always preferred to lower indifference curve ayaa laga doorbidaa midkaas waxay leedahay markasta oo indifference curve higher noqdo utility-ga productka halka uu muujinaya laga helayaan iyaduna sidoo kale way sarreysaa sidoo kale indifference curves waa la never cross each other isma tallaabaan ama cannot intersect waxaa la yidhi isma jiri karaan marginal rate of substitution waxaa la yidhahdaa waa
is a rate at which consumers are willing to substitute one commodity for another. waxaa la yidhi waa xawliga ama muxuu ahaye heerka ay consumerku doonayaan ama rabaan inay baa isugu bedeshaan one commodity hal agab for another mid kale ay ku bedeshaan weliba si ay ugu bedelanayaan consumerku weli uu ahaanayo muxuu ahaye weli uu consumerku yahay baa la yidhi on the same indifference carfigiisuna weli uu sidii ahaanayo product ku bedesho indifference carfiga weli sidii ahaanayo isbedelayn waxay ka dhigan tahay consumer willingness to substitute one good waxay ka dhigan tahay waa doonitaanka consumerka ah inuu ku bedesho hal agab kale while he or she is different between the bundles isagoo inay u kala duwaneen labadan agab uma kala duwana laakiin mid kale ku bedeshadii ama doonitaankiisa inuu agabkan kale ku bedesho iyagoo inay u kala duwaneen ayay muujinaysaa muxuu ahaye marginal rate of substitution marka marginal rate of substitution waxaa lagu helaa baa number of units y given waa laba product baa isku bedelanaya kasoo qaad y iyo x in isku bedelanaya tirada unitska ee y ee iska daysay oo loo qaybiyey number of unitska x ee aad heshay marka budget line oo the price line waxa la dhahaa jira waxaa la budget line waxaa weeyaan waa a set of the commodity bundles that can be purchased if the entire income is spent waxaa la yidhi waa tirada agabka xidhmooyinka ee wuxuu iibsan karo haddii incomekiisa ama dakhligiisa soo galo dhan uu kharash gareeyo uu bixiyo it's a graph which shows the various combinations waxaa la yidhi waa graph muujinaya muxuu ahaa isku xiranka agabyada kala duwan ee consumerku iibsan karo innagoo ku xisaabtamayna dakhligiisa xadidayna uu haysto inteen leeg buu dakhligiisa u goyn karaa innagoo ku xisaabtamayna marka haddaba la sawirayo muxuu ahaa budget line-ka uu iska leeyahay muxuu ahaa consumer waxaa la yidhi assumptions ama waxyaabaha soo socda ayaan ku xisaabtamayna kow there are only two goods both in quantities waxaa la yidhi muxuu ahaa waxaa jirta un laba tiro oo laba agab oo keliya oo muxuu ahaa tiro ahaan waa laba ka soo qaadana 3 iyo 4 ka soo qaadana quantity ahaan laba tiro laba product ka soo qaadana salaana ka soo qaada x iyo y sidoo kale each consumer is confronted with market determined prices ruux kasta ayaa consumerku waxaan ka soo qaadanaa inuu wajahayo qiimayaal uu suuq gooyo salaan price of x iyo price of y waxay inta productiga waa in qiimo gaar ah uu leeyahay suuq go'aamiye productiga x na qiimo gaar ah ayuu iska leeyahay sidoo kale the consumer has a noun and a fixed money sidoo kale waxaan ka soo qaadanaynaa in consumerkan uu leeyahay dakhli lacageed oo la yaqaano xadidan marka haddaba ka soo qaadayna consumerku inuu dhammaan kharashkiisa oo dhan ku bixiyo labadan product x iyo y we can express the budget constraint as hal xadidnaanta dakhliga ruuxan ama waxaan qeexi karaa sin soo socdo waxay ka tahay m oo ah dakhliga xadidan ee soo galay ruuxan markasta wuxuu la mid yahay productiga price-ka uu iska leeyahay ama qiimaha x productka iska leeyahay oo x lagu dhufto quantity-ga x oo loo geeyay price-ka y oo lagu dhuftay y marka qaacidada inagoo dib u habeynna baa la yidhi waxaan soo dhaandharin karaa general equation ama qaacidadan guud isla egtan guud ayaan soo dhaandharin karaa budget line-ku iska leeyahay marka waxay ka dhigan tahay y waxay kula mid noqon m oo ah muxuu ahaye income-ka ruuxan xadidan oo loo qaybiyay price of y oo laga jaray price of x oo loo qaybiyay price of y oo lagu dhuftay x marka tusaalahan waxaa la yidhi consumer ayaa wuxuu iska leeyahay wuxuu haystaa $100 to spend on two goods x and y si uu ugu kharash gareeyo laba product oo x iyo y kala price-kooduna ay kala yihiin $3 iyo $5 respectively sidoo kale horreyn waxaa ka dhiganta productiga x waa $3 y-na waa $5 haddaba waxaad soo dhaandhisaa the equation of the budget line-ka soo dhaandhiri baa equationkiisa kadibna graafkiisa sawir marka si aan soo dhaandhirino waxaan naqaanaa qaacidadii muxuu ahaay budget line-ka laga soo dhaandhirinayay oo price of x oo lagu x oo loo geeyay price of y oo lagu y waxay kula mid tahay m marka waan haysanaa price of x waan haysanaa waa 3 price of y waan haysanaa waa 5 m oo budgetkii ama kharashkii ruuxan income soo galiyeen waxaan haysanaa waa 100 markaan ku bedelano waxay noqonaysaa 3x + 5y waxay kula mid tahay 100 y hadda saan u soo helno waa inaan sariga iska wareejino marka 5y waxay kula mid tahay 3x markaan wareejino 5 waxay kula mid tahay 100 laga jaray minus 3x si haddaba aan y u soo helno dhan kasta waxaan u qaybinaynaa 5 dhan kasta marka haddaba 5 u qaybino waxay la mid tahay y waxay kula mid noqonaysaa 100 loo qaybay 5 laga jaray 3/5x markaan u qaybino muxuu ahaayay dhan kasta markaan 5 u qaybino waxay noqonaysaa 100 5 qayb 20
minus 3 over 5x marka budget constraint-gii ruuxa waan soo dhaandhay marka hadda consumer-kan waxaa la yidhi spends all of her income on good way waxaa la yidhi haddii consumer-kani uu dhammaan dakhligiisoo dhan way productiga way uu ku bixiyo waxaa la yidhi we get the y ilan graafkan sawirayna soma waxaan helaynaa y interceptiga ama barta uu graaf ka jarayo muxuu ahaaye carfigu wuxuu noqonayaa 0,2 sidoo kale haddii consumer-kani dhammaan kharashkiisoo dhan uu ku bixiyo baa la yidhi incomekiisa ku bixiyo on good x agabkan ama shaygan x product x hadduu ku bixiyo waxaan ogaanaynaa x interceptiga ama barta x ka jaraya iyaduna sidoo kale noqonayso 33.0 noqon marka haddaba labadan barood inagoo isticmaalayna hadda waxaan sawiri karnaa maxay labadii barood y iyo x meeshu ka jaray graph carfigu xariiqu waan go'aaminay saa darteed waan sawiri karnaa marka wuxuu noqonayaa graafkeenu noocan ayuu u ekaanayaa ila waxaan x interceptiga y interceptiga waan helay marka haddaba waxaad xusuusnataa baa layidhi budget line is drawn for a given prices and fixed consumers income budget line-ka markii la sawirayo waxaa lagu sawiraa given prices qiimayaal go-an iyo sidoo kale consumerka incomekiisuna waa inuu fixed yahay tusaalahan hadda is adeegsanayna priceku waa 3 iyo 5 bay kala hayeen priceka x oo 3 iyo priceka y oo 5 aha consumerka dakhligiisuna wuxuu ahaa muxuu ahaa 100 buu ahaa dollar marka markastoo sawirayso waa inay given prices iyo sidoo kale fixed consumers income waa inay isticmaalaan saa darteed the changes in price or income isbeddel kasta oo ku yimaada qiimaha agabka iyo sidoo kale dakhliga ruuxa soo galaya will affect the budget line wuu saameyn buu ku yeelanaya budget line wuxuu sameynayaa wuu wareegayaa ama hoos kor dhaca hoos soconaya mooyaane budget line isbeddel baa ku imanaya haddii price-ka ama income-ka dakhliga ama qiimaha midkood uu isbeddel ku yimaado yahay the theory of production and the cost aragtiyaha ama aragtida ku saabsan wax soo saarka iyo sidoo kale kharashka marka waxaan arki doonaa theory of production in the short run iyo theory of cost in the short run ayaan arki doonaa short run waxaa la yidhahdaa ama short run production waxaa la yidhahdaa wax soo saarka mid ka mida ugu yaraan mid ka mida factors production uu yahay fixed ayaa la yidhahdaa muxuu ahaaye short run marka waxaa la yidhi maxay haddaba qeexitaanka production muxuu yahay wax soo saar waxaa la yidhahdaa baa the process of transforming inputs into outputs waxaa la yidhi waa hanaanka loogu bedelayo gashigii loogu bedelayo wax soo saar sidoo kale waxaa loo qeexi karaa as an act of creating value or utility waxaa la yidhi sidoo kale waxaa loo qeexi karaa ficilka ah in qiimo la abuuro ama sidoo kale utility qanaaco dheeriya oo agabkan ama shaygan laga helo in lagu daro loo sameeyo ee la yidhahdo shay hore usii jira dad qiimo gooniya kusoo darto production iyadana sidoo kale lagu qeexi karaa the end products of the production process are outputs waxaa la yidhi end productska ama wax soo saarka ama xasuulka ugu dambeeya wax soo saarku hanaanka wax soo saarka waa outputska which could be tangible kuwaasoo noqon kara muxuu ahaaye wax la taaban karo oo goods adeeg agab inaad soo saarto agabka wax la taaban karo ama wuxuu noqon karaa wax gabagabadii maxsuulka ugu dambeeya soo wuxuu noqon karaa intangible midaan la taaban karin buu noqon karaa oo ah surface adeeg wax la taaban kara maaha waa la dareemi karaa production function baa jirta haddaba xiriir ka dhexeeya muxuu ahaa inputska iyo outputska muxuu ahaaye function qeexdaya jirta marka production function waxaa la yidhi waa technical relationship between inputs and outputs waa xiriir farsamo u dhexeeya inputska iyo outputska gashiga iyo wax soo saarka waxay muujisaa the maximum output that can be produced with fixed amount of inputs under the existing technology waxayna tusaa baa la yidhi outputka ama wax soo saarka ugu badan ee aan soo saari karno inagoo adeegsanayna gash xadidan iyo sidoo kale teknolojiyadii ama farsamadii sii jirtay wixii aan awoodno ay sii jireen haysanay production function marka waxay noqon kartaa qaab waxaa loo muujin karaa algebraic equation ama isla eg xisaabeed ahaan waa loo qori karaa shax ahaan waa loo qori karaa ama graph ahaan waa loo qori karaa marka waxaa la yidhi general equation iska leh for production function can be waxaa can for instance be described as tusaale ahaan waxaa loo qeexi karaa sidan oo kale ayaa loo qeexi karaa waxay ka dhigan tahay tusaale waxaan haysanaa
number of inputs kaan haysanaa ay kala duwanaan kartaa x1 x2 ilaa iyo xn. marka q oo ah outputkeena equationkan waxay muujinaysaa intayn leega outputs ayaan soo saari karnaa inagoo adeegsanayna tirada xadidanaya ee inputs kaan haysanaa. inputska marka waa la kala qaybiyaa noocyo kala duwan baa laba qaybood oo kala duwan baa loo kala saari doonaa anaka tan. inputska waxaa loo kala saaraa fixed inputs iyo variable inputs. inputs xadidan iyo kuwa sidoo kale isbedeli kara. fixed inputs waxaa la yidhahdaa waa inputska whose quantity cannot rarely be changed. waxaa la yidhi waa inputska tira ahaan aan la bedeli karin isla markaaba aan la bedeli karin. markaba la yidhi xaaladaha suuqu ay muujiyaan in loo baahan yahay wax soo saarkeena looga baahan yahay isbedel degdeg ku sameyn waa outputkeenu rabnay yaan u baahnay inaan isbedel ku sameyn si outputkaas isbedelkaan rabnaa ay u hirgalo waa inaan inputskii iyagana aan isbedel ku sameyn. marka haddii inputkaagan aan xaaladuhu marka ay muujiyaan inay loo baahan yahay isbedel lagu sameeyo outputka aada inputkaagan bedeli karaynin quantitiskiisii tir ahaan aada yareyn karin ama aada badin karin waxaa la yidhahdaa fixed inputs bale. variable inputskuna waxaa la yidhahdaa waa kuwa kasoo horjeedkeedii waa those inputs whose quantity can be altered. waxaa la yidhi waa inputska ama gashiyada tir ahaan ama intay yihiin la bedeli karo almost instantaneously in response to desired changes in output. waxaa la yidhi ku dhawaad marka xilli kasta la bedeli karo muxuu ahaa iyadoo jawaab laga bixinayo outputka isbedelka la rabo in lagu sameeyo. marka waxaa jira productiga total average iyo marginal product baa jira. total product waxaa la yidhahdaa waa wax soo saar guud waxaa la yidhahdaa waa the total amount of output. waxaa la yidhahdaa waa qadarka guud ee wax soo saar that can be produced by efficiently utilizing specific combinations of variable input and fixed input. variable input iyo fixed input iyagoo la isku xiranka labadaa la isku darayo tirada guud ama wadarta qadarka ee la soo saari karay outputka ayaa la yidhahdaa maxaa ahaye total product la yidhahdaa. marginal productina waxaa la yidhahdaa waa productiga dheeriga ee la soo saaray. marginal it's the change in output waxaa la yidhahdaa isbedel ku imanaya outputka kaasoo weliba la xidhiidha mar kasta oo hal unit oo dheeri oo variable input aad ku darto maxaa production processka ama hanaanka wax soo saar hanaanka wax soo saar markaad hal gashay oo dheeri oo variable kusoo darto isbedelka ku yimaada wax soo saarka ayaa la yidhahdaa marginal product. other inputs being constant haddii inputska kale ay kasoo qaadeen inay yihiin joogto oo iyaguna ay isbedelayaan. average productina iyaduna waa waxaa la yidhahdaa waa celcelis. waxaa jira xeer la yidhaahdo the law of variable proportions. marka law of variable proportions states that wuxuu sheegayaa baa la yidhahdaa successive units of variable input are added to a fixed input. waxaa la yidhahdaa mar kasta oo units ama qaybo xiga oo variable input lagu daro muxuu ahaaye to a fixed input. tusaale variable input inuu yahay kasoo qaad baa labor waxa weeyaan waa xoogga maskaxeed ama waxaan jeedaa dadaalka maskaxeed iyo midka duleed ee ay dadku sameeyaan si wax loo soo yaa la yidhahdaa muxuu ahaaye labor. tusaale variable input kan labor units isku xiga ayaa waxaan u geynay fixed input kasoo qaadanaya capital or land. beyond some point bar ayaan ilaa heer ayaan dhaafin. marka bartaas wixii ka dambeeya oo ah the extra or marginal product waxaa la yidhi productigaas dheeriga ee lala xidhiidhin karo ilaan mar kastoo aan gashigeena badino productiguna waa inay badato. marka bartaa markaan dhaafino marginal or extra productiga lala xidhiidhin karta lala xidhiidhin karo ama uu soo biirin karo each additional unit of the variable resource. hal kii kasta variable input ee lagu daray will decline hoos ayuu dhacaya. waxay ka dhigan mar kasta oo successive units ama qaybo xiga oo variable input aynu ku darro fixed input halkii unitba productiga dheeriga uu keeni karaay hoos ayuu sii dhacaysaa. tusaale ahaan haddii additional workers are hired to work waxaa la yidhahdaa haddii shaqaale dheeriga la codsado ama la dalbado si ay u shaqeeyaan with a constant amount of capital equipment waxaa la yidhi qadar muxuu ahaaye hanti ahoo joogta ah qalabka la haysto. capital waxaa la yidhahdaa muxuu ahaaye dhammaan waxa shirkaddu iska leedahay ay u isticmaali karta in wax kusoo saarto tusaale ahaan warshadii iyo dhismayaasha haysatay. capital equipment xadidan ayaa waxaan
usoo shaqaale dheeri ah usoo u yeedhaynaa si ay ugu shaqeeyaan marka waxay ka dhigan tahay capital equipment waxa weeyaan waa fixed input shaqaalaha loo yeedhanayaana waa variable inputski successive units oo si xigay loo yeedhanaya marka halkii shaqaalaha ee lasoo biiriyaa maadaama factor of production ka mid yahay oo labor ka mid yahay waa inuu additional unit ama qayb dheeri oo output waa inuu keenaa marka outputkii will eventually rise by smaller and smaller amounts outputka marka dambe waxay sare u kici qadar yar oo inta halkii ruuxba marginal product ama soo saarka dheeriga uu soo biirin karay hoos bay u dhacaysaa as more workers are hired markasta oo shaqaalaha la sii bato sababtoo variable input yaynu qayb successive units fara badan ayaa waxaynu u geynaynaa fixed input saa darteed mid kasta ay faa'iidada dheeriga ama soo saarka dheeriga uu keeni karay markasta oo ay sii bataan muxuu ahaay qaybaha lagu sii darayay hoos ayuu sii dhacaysaa marka waxaa jira heerar stages of production heerar muxuu ahaay wax soo saarku uu maro stageskaas waa saddex baan arkaynaa stage of production waxaa la can be divided into three distinct stages of production waxaa loo kala qaybin karaa saddex heer oo kala soocan ee loo qaybin karaa marka stage koowaad waxaa la wuxuu kasoo bilaabanaya 0 units of variable input ever markuu ilaa inta laga gaarayo level of average product of labor is maximum average product uu iska leeyahay labor marka uu meesha ugu sarreeyo gaaro inta waxaa la yiraahdaa stage koowaad marxaladda labaadna waxaa weeye stage labaad ayay follows stage 1 ka ayay daba socotaa and then waxayna gaadhaa baa leeyahay inuu sii dhafta ilaa inta marginal product of labor uu gaarayo muxuu ahaayay uu yahay 0 sidoo kale total product of labor uu yahay maximum stage 3 guna waa leeyahay continues on from that point fartaas ayuu isaguna ka sii socdaa theory of production in the short term ayaan soo dhamaynay qaybtan waxaan ku arkaynaa theory of costs in the short term qiimayaal kala duwan baa jira maxaa production dhexda qiimayaal kala duwan marka definition and types of costs qeexitaanka iyo sidoo kale noocyada kharashaadka marka waxaa la yidhi si aad usoo saarto agab iyo adeeg firms need factors of production oo simple units waxaa la yidhi shirkaduhu waxay u baahan yihiin factors of production waxyaabihii saamayaasha wax lagu saaray u baahan yihiin ama si fudud aan dhigno inputs gashi bay u baahan yihiin marka to acquire these inputskan si aad u hesho oo shirkadan inputskii ay wax kusoo saari lahayd u hesho waa inay soo iibsadaan ama ay kasoo iibsadaan maxaa kheyraadka u baahan yihiin dadka resource suppliers ama dadka adeega bixiyaasha adeegana ka helayaan waa inay kasoo iibsadaan marka saa darteed cost waxaa la yidhahdaa the monetary value inputs used in the production of an item waxaa la yidhahdaa qiimaha lacageed ee iska leeyahay gashigaas loo isticmaalay in shay lagu soo saaro qiimihii kaaga baxay gashigaas si aad usoo iibsato ayaa la yidhahdaa maxaa cost la yidhahdaa marka costiga waxaan jeedaa ama profit faa'iidada dhaqaalayahanada iyo sidoo kale xisaabiyaashu si kala duwan bay isticmaalaan economists waxaa la yidhi waxay u isticmaalaan ereyga profit differently from the way accountants use it ka duwan sida accountantska ama xisaabiyaasha ay u isticmaalaan marka accountantiga profit waxay uga dhigan tahay baa la yidhi the firm's total revenue less its explicit cost waxaa la yidhi waa muxuu ahay dakhliga guud ee shirkadda soo gala oo laga jaray costiga explicit iyo implicit cost waa nafsi doona waxay leeyihiin oo accounting costing loo yaqaano laakiin economistku wuxuu yaqaanaa profitku waa total revenue oo laga jaray economic cost marka implicit cost iyo explicit cost la isku daray ayuu noqonaya waan arkaynaa implicit iyo explicit cost waxaa la yidhahdaa waa the actual payments made by a firm waxaa la yidhahdaa waa paymentka ama kharash bixinta ama lacag bixinta dhabta ay shirkaddu samayso ee u bixisa baa la yidhi for purchasing or hiring resource waxaa la yidhi inay soo iibsato ama ay soo u yeelato kheyraad ay solaan oo kale dad soo shaqaaleysato ama wax soo iibsato factorskii kale factors of productionskii kale ay soo iibsato ay kasoo iibsatay baa la yidhi ownerkii factor productionka ama waxay ruux iska lahay kasoo iibsato ama other firms shirkadaha kale kasoo iibsato dhaqaalaha waxaa kaga baxaa la yidhahdaa soo iibsashada muxuu ahay gashiyada ay u baahan tahay si wax soo saarto horta iyo sidoo kale waxyaabaha ay u baahan tahay oo dhan dhaqaalaha ay soo siisato shirkadu ay shirkadaha kale ama other suppliers ay siiso dhaqaalaha kaga baxaa explicit cost baa la yidhahdaa kharashaad kaga baxa implicit costina waxaa la yidhahdaa wuxuu ka dhigan yahay baa waa sidoo kale input costina waa la yidhahdaa
waxaa la yidhi waa waxa ay shirkaddu iska leedahay shirkadda lafteeda iska leedahay wax gaaban tusaalaan karaynta dhul ay shirkaddu iska leedahay inay karayso tusaalaan implicit cost sidoo kale waxaa la yidhahdaa opportunity cost sababtoo ah shirkaddan markay dhulkeeda karayso waxay ka tanaasushay dhulkan inay u isticmaasho waxyaabo kale tusaalaan inay ka dhisato waxyaabo kale oo ay wax soo saar u isticmaasho laakiin meeshay kuwaa ku bixi lahayd bay way tahay marka opportunity costna sidoo kale oo noqon karaa ma implicit cost economic cost iyo accounting cost marka horey intaan hore soo aragnay yaa mar labaad si fiican loo sharxay economic cost waxaa la yidhahdaa waxaa ka mid ah the costs of all inputs used in the production process waxaa la yidhi dhammaan kharashaad ku baxay oo dhan muxuu ahaayey inputskii loo isticmaalay hanaanka wax soo saar ha ahaadaan inputskaasi kuwa la soo iibsaday oo suuqa laga soo iibsaday ama ahaadaan mid ay shirkaddu iska leedahay marka economic cost wuxuu leeyahay explicit cost iyo implicit cost oo la sugeeyay laakiin accounting cost waxaa la yidhi for accountants waxaa la yidhi cost iyaga waxay u yaqaanaan the cost of production includes waxaa ka mid ah the cost of basic inputs on inputska la soo iibsaday kharashaadka ku baxay keliya ayaa muxuu ahaa accounting cost la yidhahdaa accounting cost sidaas darteed waa the explicit cost of production on explicit costiga qiimaha wax soo saarka ku baxay keliya waxa ay shirkaddu banaanka ka baxsanayso cutubkan shanaad wuxuu ku saabsan yahay market structure ama qaab dhismeedka suuqa marka waxaan arki doonaa qaab dhismeedyo badan suuqa yeelan kara suuq qaar dad gaara gacanta ku hayaan ku xora oo tartan ka jiro waan arki doonaa noocyo kala duwan baan arkaynaa market marka hadda laba suuq baa jira suuqan caadiga naqaana ee suuqan duleed ee la arki kara ee muuqda iyo sidoo kale mid digital ah marka market macnaheedu ama suuq waxaa la yidhahdaa waa goob caadi oo dhulka ah oo aan arki karo ama waa digital space waa goob muxuu ahaaye internetka dhexdiisa taasoo agabka iyo adeegga iyo sidoo kale fikradaha laisku yidaarsado si baahiyaha dadkan muxuu ahaye consumerska ama quutayaasha ama dadkan isticmaalayaasha agabka iyo adeegga si baahiyahooda loo buuxiyo meel agabka iyo adeegga iyo aragtiyaha laisku yidaarsado ayaa suuq la yidhahda marka digital marketingu waa qayb ka mid ah muxuu ahaye suuq geynta ama suuq waxaa la yidhi waa the marketing of products waa suuq geynta baa la yidhi agabka ama adeegyada la suuq geeyo iyadoo la adeegsanayo digital technology badanaana internet iyadoo la adeegsanayo sidoo kale waxaa ka mid noqon kara muxuu ahaye iyadoo la adeegsanayo telefoonada iyo display advertising waxa loo yaqaano ama xayeysiisyadan mobilada iyo website-yada iyo sawirada iyo muuqaalada iyo codadkan xayeysiiska applicationada iyo website-yada iyo kasoo muuqda ayaa la yidhahdaa display advertising iyo sidoo kale iyadoo la adeegsanayo any other digital media muxuu ahaye warbaahin kasta oo muxuu ahaye internetka dhexdiisa iyadoo la adeegsanayo muxuu ahaye ayaa ka mid noqon kara muxuu ahaye digital marketing physical marketkuna waxaa la yidhi waa wuxuu samaysmaa ama waa wuxuu ka jiraa suuqa noocani where buyers can physically meet their seller meesha baa la yidhi iibsadayaashu ay si duleed ula kulmi karaan iibiyayaasha oo kii iibsanaya kii wax laga iibsanaya ay kulmi karaan sidoo kalena buyerku uu iibsan kara baa la yidhi the desired merchandise from them in exchange of money wixii uu rabay ama agabkii uu rabay uu kasoo iibsan karo isaga oo kaga bedelanaya muxuu ahaye lacag kaga bedelanaya marka suuqyadan waxaa jira suuq perfectly competitive market suuq si dhammaystiran uu uga jiro muxuu ahaye tartan perfectly competitive market waxaa la yidhahdaa perfect competition ama tartanka dhamayska tiranaya si buuxda waxaa weeyaan waa market characterized by a complex absence of rivalry among the individual players waxaa la yidhi waa suuq ama waa qaab dhismeed suuq oo dabeecad ama lagu yaqaano in si buuxda ay meesha uga maqan tahay mayna jirin waxa la yidhahdo rivalry oo ah xifaaltan ka dhexeeya muxuu ahaye shirkadaha marka competition iyo rivalry waa kala gaar rivalry ama muxuu ahaye xifaaltanku waxaa la yidhahdo waa weeyaan in labadan shirkadood tartankooda ama tartanka u dhexeeya uu ku salaysan yahay inay midda kale rabto inay suuqa ka saarto ama ay iyadoo ka awood sarreyso competitionka laakiin waxaa weeyaan kaliya inaad ka ficnaato shirkaddan adeegaaga iyo sidoo kale productkaaga waxaad iibinaysaa inay ka ficnaadaan baad rabtaa marka way kala duwan yihiin perfect competition waxaa la yidhahdaa marka uuna jirin wax muxuu ahaye xifaaltan oo laba shirkadood u dhexeeya laakiin tartan uu jiro
marka perfect competitive market assumptions ama ka soo qaaday uu ku dhisan yahay baa jira. Waxaa la yidhi marketkan ama suuqan waxaan odhanaynaa waa pure competition baa ka jira, tartan saafi ah ayaa ka jira, ama waa perfectly competitive market baan odhanaynaa haddii assumptionskan ama ka soo qaadida soo socda haddii la buuxiyo oo waxyaabaha soo socda hadday jiraan ayuu suuqani noqon karaa muxuu ahay competitive, perfectly competitive. midda kale waxaa weeyaan waa inay jiraan large number of sellers and buyers, tiro aad u badan oo iibsadayaal iyo iibiyaal waa inay jiraan. dadka wax iibsanaya macaamiisha iyo sidoo kale dadkan wax iibinaya productska haya labadu waa inay badan yihiin. sidoo kale waa in productskan suuqa lagu iibinaya ay yihiin homogeneous, kuwo isku kaana. productska hadday kala duwan yihiin waxay ka dhigan tahay tartan dhammaystiran meesha kama dhici karo. productska la iibinaya waa in wax isku mid ah. sidoo kale perfect mobility of factors of production ama waxyaabahan wax soo saarka sahlaya ee la adeegsanayo waa in si dhammaystiran ay u wareegi karaan ay suuqa dhexdiisa ay kula meel wareego. Tusaale factors of production waxaa ka mid ah muxuu ahay shaqaalaha ka mid ah. shaqaaluhu waa inay xor u yihiin inay shaqo ka tagaan shaqo kala tagaan. sidoo kale inay goob ka tagaan oo goob kala tagaan waa inay xor yihiin. sidoo kale factors of production waxaa ka mid ah wixii laga sameyn lahaa raw materials ama agabkii caydhin ama walaxdii caydhin ee laga sameynayay muxuu ahay wax soo saarka. marka taa lafteeda waa in ayna dad gaari gacanta ku hayn, waa in cid kasta ay heli karto xorta. waxaa kaloo ka mid ah free entry and exit, soo galitaan xora iyo bixitaan xora. waxay ka dhigan tahay shirkadda markay suuqa soo galayso waa inayn wax barriers ama caqabadaha derbi hortaagan waa inuu jirin markay baxaysana. sidoo kale waxaa sidoo kale ka mid ah perfect knowledge about market conditions, aqoon dhammaystiran in ay dadkan u leeyihiin muxuu ahay sellerska iyo buyerska ama iibsadayaasha iyo iibiyaashu inay aqoon dhammaystiran u leeyihiin xaaladaha suuqa. sidoo kale waxaa ka mid ah assumptionska uu ku dhisan yahay perfectly competitive marketka no government interference, waa inuu jirin baa wax faragelin oo dowladda ah nooc dooni ahaado. dowladdu waa inayna faragelin ayna muxuu ahay ku lahayn suuqa. short run equilibrium of firm, waxaa jirta muxuu ahaa liganka suuqa. tusaale khasaaraha iyo marka laga eego muxuu ahaa shirkadda khasaaraha iyo faa'iidada soo galay. waxaa la shirkad kasta ay objective ama main objective the main objective of the firm, waxaa la yidhi hadafka koowaad ama ugu weyn ee shirkadu leedahay waxaa weeyaan waa profit maximization. waxaa la yidhi inay faa'iidada ay ganacsigeeda faa'iidada ay ka helayso inay badiso. haddii haddaba shirkaddu ay khasaaro gasho ama ay khasaaro u banbaxdo waxay ka dhigan tahay marka ujeedadeedu waxay noqon inay khasaaraha yarayso. marka profit waxaa la yidhahdaa farqiga u dhexeeya total revenue dakhliga guud ee soo galay iyo sidoo kale total cost iyo kharashaadka guud ee ka marka la kala jaro waxa soo hadhaa la yidhahdaa faa'iido la yidhahdaa. marka total revenue ama dakhliga guud ee soo galay waxay ka dhigan tahay waa amountiga lacagteeda ka hesho muxuu ahaay marka qadarka agabkeedii. marka waxaana lagu helaa total dakhliga guud ee kusoo waxaa lagu helaa price of the product oo lagu dhiftay muxuu ahaay quantity of the product sold, qadarka agabkaad iibisay oo lagu dhiftay qiimaha midkiiba iska leeyahay. average dakhliga muxuu ahaay celceliskiina waxa weeyaan waa dakhliga greenest item muxuu ahaay halkii shay la iibiyay intee leeg oo dakhliga iyo celcelisaan soo xarayn halkii kaliya ama markii celcelisayaan. marka waxaa lagu helaa total revenue ama dakhliga guud ee kusoo helo loo qaybiyey amountiga ama qadarka agabkeed iibisay. marginal revenue waxaa la yidhaha waa additional amount of money ama revenue, waa dakhliga waa dheeriga ama lacagta ee shirkaddu hesho baa la yidhi markay iibiso hal shayba halkii product oo lacagta ay ga hesho la yidhi. marka si kale haddaan dhigno waxaa la yidhahdaa waa isbeddel ku imanaya total revenue ee ka imanaya markii hal unit ama hal shay oo dheeriya markay shirkaddu iibiso. marka hore waxaan soo sheegnay shirkadda hadafkeeda koowaad inuu yahay muxuu ahaa inay faa'iidadeeda badiso, laakiin shirkaddu khasaaro soo wajaho waxay isku dayay inay khasaaraha yarayso. marka waxaa jira haddaba laba qaab oo lagu go'aamiyo heerka wax soo saar shirkad muxuu ahaay tartan ku jirto suuqa ka tartami kartaa ay ku gaari karto in profitka ama faa'iidadeeda inay sare u qaado khasaaraheedana sidoo kale ay yarayso. marka labadaas mid ka mid ah waxaa weeyaan baa la yidhi in la isbarbar dhigo total revenue iyo total cost. qaabka labaad ee lagu cabiri karaan waxaa weeyaan baa in la isbarbar dhigo marginal revenue iyo sidoo kale marginal cost. labada qaab ayaa loo cabiri karaa muxuu ahaay
sidee bay shirkadda ama ku gaari kartaa maximum profit oo minimum loss faa'iidada ugu badan inay hesho ama khasaaraha ugu yar uu soo gaaro suuqa hadda waxaa jira nooc kale oo qaab dhismeedka suuqa ka mid ah la yidhahda monopoly waxaa la yidhahdaa waa nooc ka mid ah suuq dad gaar ah u xirxiran waxaa la yidhi dabeecadihiisa iyo qeexitaankiisaan arkaynaa pure monopoly waxaa la yidhahdaa ama monopoly suuq dad gaar ah u xirxiran oo faafiya wuxuu jiraa marka hal shirkadi ay tahay the only producer of a product soo saaraha keliya ee wax soo saarka productiga hal shirkad ayaa keliya ah midda soo saarta sidoo kale ma jiraan baa layidhi close substitutes ama waxyaabo kale oo lagu bedelan karo oo u dhowo ma jiraan marka dabeecadaha lagu yaqaano muxuu ahaye monopoly market structure waxaa ka mid ah waxyaabaha soo saarta waxaa ka mid ah single seller hal iibi waxay ka dhigan tahay productkan halkaa shirkada soo saartan baana iibisa sidoo kale substitutes ama waxyaabo lagu bedelan karo oo ku dhow agaba ma jiraan waxaa kale oo ka mid ah price maker waxaa la yidhaha qiimo sameeyaha ama qiimaha waxaa jaangoysa shirkadda ama halkaa shirkaddaa soo saaraysa ama iibinaysa ayaa jaangoynaysa qiimihi sidoo kale waa blocked inta waxay ka dhigan tahay soo galitaankiisu xiran yahay oo shirkadaha kale oo dhan dadka gaarka loo xirxiray ma soo geli karaan marka waxaa jira haddaba ilo monopolygu ilo uu ka yimaado ama waxyaabo sababa oo meelo uu ka imanaya jira marka waxaa la yidhi soo bixitaanka emergence and survival of monopoly soo bixitaanka iyo sidoo kale inuu sii jiro monopolygan suuq dad gaar u xiran waxaa lala xiriiriyaa baa la yidhi waxyaabaha marka horeba ka hor istaaga dadku inay soo galaan industriga ama sida in la soo galo tusaalahaan oo kale industry qayb ka mid tusaalahaan agriculture ama nooc ka mid a muxuu ahaye qaybaha wax soo saarka in la soo galaba waxyaabaha dadka ka hortaagan ayaa ah ilaha keenaya muxuu ahaye monopoly marka barrierskan dadkan ka hortaagan ayaa sidoo kale ah sourceka monopolygu ka dhalanaya marka major source of barriers to entry are major sources of barriers to entry are waxaa la yidhi ilaha ugu waaweyn ama derbiyada ugu waaweyn ee muxuu ahaye dadka ka hortaagan inay suuqa soo galaan kuwan soo socda weeyaan waana kuwa keenaya muxuu ahaye monopolyga ee sourceska ah midda kale waxaa waye legal restriction xadidnaan ama xadidid dhanka sharciga oo sharci ahaan waxaa laga yaabaa dowladdu inay soo saarto sharci gaar oo dhigaya in shirkado noocaasa ama haddii doona adeeg dadweynaha ama private sectorka inay dowladdu gacanta ku hayso tusaalahaan korontada iyo isgaadhsiinta waxyaabaha qaarkood inay ama dad gaaraba in loo xiro dhici karta sidoo kale waxaa sababi kara in monopoly u yimaado haddii ay jirto cid kii raw materialska ama muxuu ahay walxihii caydhiin ee muhiimka ah wax soo saarka laga samayn lahaa haddii cid gaara ay gacanta ku hayso waxay ka dhigan tahay ciddaa gaarka unbaa fursado haysata inay waxaa soo saarto saa darteed xakamaynta ay raw materialska gacanta ku haysa ayaa sababaya in inuu ka dhasho muxuu ahay monopoly oo suuqa iyada keliya uu gacanta ugu jiro sidoo kale efficiency waxtarka shirkadda tusaalahaan hadday shirkad weyn tahay oo qadar scaleka ay wax kusoo saaraysa aad u badan oo muxuu ahay qadar aad u badan ay soo saari karto waxaa laga yaabaa shirkadihii kale yaryaaraa oo dhan inay meesha ka saarto marka waxtarkeedii iyo sidoo kale awooddeedii shirkadii ayaa dhaliyay muxuu ahay inuu suuq iyada ku xirnaado sidoo kale waxaa dhici kara patent rights ama xaqa wax soo saarka xaqa uu ruuxu leeyahay wixii isagu soo daafuray inuu xaq u leeyahay marka waxaa laga yaabaa wixii aad soo daafurto patent rights waxaa la yidhahdaa waa xaq ay dowladdu u siiso ruuxii wax soo saaray in wixii isagoon keliya un xaq u leeyahay una isaga la-aantii fasaxiisa ama aan soo saari kara ama isaga keliya inuu waxaa soo saaro maadaama marka hore isagu la yimid halabuur monopolistically competitive market hadda waxaa jira suuq dad gaar u xiran laakiin haddana tartan ka jiro waa suuq waxay ka dhigan tahay shirkado dhowr waxoogaa shirkadaha ay ku jiraan iyaga keligood u xiran laakiin iyaga dhexdooda waxoogaa yar tartan uu dhex maraya marka suuqani waxaa la yidhi noocani waxaa la yidhahdaa waxaa jira relatively many firms selling differentiated products waxaa jira baa la yidhi waa suuq ama waa market organization in which there are relatively many firms selling differentiated products waxaa la yidhi waa nooc suuq ah oo ay jiraan shirkado muxuu ahay kala duwan oo iibinaya muxuu ahay product differentiated oo la kala garanayo productska iibinaya waxay ka dhigan tahay waa muxuu ahay isku mid
laakiin waa differentiated oo waa laba yar kala soocan yihiin marka it's the blend of competition and monopoly waxaa la yidhi waa tartan iyo monopoly iyo xidhnaantii oo la isku qasay marka qaybta muxuu ahay tartankii waxay ka imanaysaa the existence of large number of firms and no barrier to entry hore iyo sidoo kale soo galitaanka iyo ka bixitaanka inayna wax caqabadii ka jirin iyo sidoo kale inay shirkado badani jiraan ayaa waxay keenaysaa in suuqii qayb ka mid inuu qayb dabeecad tartan ay yeesho qaybta monopoly-gina waxay ka imanaysaa baa leeyahay maadaama waxaan la soo saaraya ay differentiated products kala sooc waa products isku mid ah laakiin la yar kala garanayaan waa hal product laakiin waxaa laga yaabaa designka iyo qaabka ay muxuu ahay u moorayaan iyo packaging waxaa laga yaabaa inay kala duwan waxay ka dhiganta waa similar but not identical products waa products isku mid ah laakiin aan isku nooc ahayn products isku mid ah laakiin nooc ahaan iyo naqshad ahaan iyo laga yaabaa inay kala duwan yihiin marka suuqan waxaa lagu yaqaanaa dabeecadahana lagu yaqaanaa kow differentiated products kala sooca waan soo aragnaa waxaa kaloo lagu yaqaanaa money sellers and buyers muxuu ahaay iibiyayaal iyo iibsadayaal dadka wax iibsanaya dadka wax iibinaya labaduba waa ay badan yihiin sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa ease into entry soo galitaan iyo sidoo kale bixitaan fudud oo ma jiraan wax caqabadaha ah oo inaad soo gashay inaad suuqa iskaga baxdo oo ka hortaagan sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa existence of non price competition inuu jiro tartan aan qiimo ku salaysnayn aan tartanka u dhaxeeya shirkadahani maaha qiimo laguma tartamayo qiimaha agabka waxaa lagu tartamaya waxyaabaha kale soolaan oo kale xayisiiska iyo sidii macaamiisha loo qancin lahaa iyo waxaas lagu tartamaya maaha qiimo waxa lagu tartamaya marka waxaa jira mid kale oo isaguna suuqii ka yar muxuu ahaay ballaaran monopoly oligopoly market baa la yidhahdaa oligopoly market waxaa la yidhahdaa waa shirkado yar ayaa muxuu ahaay ku tartamaya waxaa la yidhi suuqan waxaa dabeecado ah few dominant firms shirkado yar oo suuqaba haysta shirkado yar baa suuqa haysta shirkadaas tir ahaan intay dooni ma xadidno waxaa laga yaabaa 4 5 inay noqdaan sidoo kale interdependence waa lagu yaqaanaa way isku xiran yihiin shirkadahan way isku tiirsan waxay leedahay go'aanka ay shirkada qaadato shirkada kalena wuu saameynaya waxaa kaloo loo yaqaanaa entry barrier soo galitaankiisu inuu caqabad jirto oo shirkadaha kaliya meesha doominid karo haystaba shirkadaha kale inuu soo galaan caqabado hortaaganaya jira sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa products may be homogeneous or differentiated products kala soo saaraya waxay noqon karaan homogeneous isku mid ah oo shirkadahaasi products isku mid ayay soo saari karaan design ahaan iyo color ahaan noocdi ama waxay noqon karaan isku mid weeye laakiin waa yar kala soocan oo differentiated waa la kala sooci karaa sidoo kale lack of uniformity in the size of firms waxaa la yidhi ma jirto isku mid ahaansho xajmiga shirkadaha xajmigoodu maaha uniform mid joogta ama waxaa laga yaabaa shirkadaha qaarna waaweyn yihiin shirkadaha qaarna shirkada yaryar ay yihiin sidoo kale waxaa ka jira tartan aan ku salaysnayn muxuu ahaay qiimo non price competition oo waxyaabaha kale ee xayisiiska iyo waxyaabahaas weeyaan tartanku ku salaysnayn shirkadahan u dhexeeya marka nooc ka mid ah muxuu ahaay oligopoly-ga kaasoo ay jiraan baa layidhi only 2 firms in the market keliya 2 shirkadood ayaa ah baa layidhi suuqaba gacanta ku haya noocaas hadda waxaa lagu magacaabaa duopoly waa nooc ka mid ah oligopoly-ga oo laakiin 2 shirkadood keliya ayuu suuqa u xiran yahay marka nooca waxaa la yidhahdaa duopoly-ga tusaalahaan waxaa dhici karta tusaalahaan waxaa ka mid ah tusaalayaasha duopoly-ga taleefanadan casriga inta la isticmaalo waxay ku shaqeeyaan operating systemka ay ku shaqeeyaan waa ama waa Android ama waa iOS marka labadan operating system ayaa taleefanadii oo dhan operating systemka ay ku shaqeeyaan gacanta ku haya sababta waxaa la yidhahdaa Android iyo muxuu ahaay iOS waxay abuureen duopoly marka cutubkan hadda intuu ka soo hadlaya ama market structureski summary-ga xaggan ayaan ku arkaynaa marka xaggan waxaa ku qoran dabeecadihii ay iska lahaayeen suuqa xaggana afartii suuqeen soo aragnay marka inagoo eegayna number of firms ama tirada shirkadaha ee suuqa ka jira pure competition waxaa waa large tira aad u badan monopolistic competition waxaa waa money waa shirkado badan laakiin aad uma sii badno sida pure competition oo kale oligopoly-gana waa few shirkado yar baa gacanta ku haya pure monopoly-ga laakiin ama monopoly-ga saafida ay hal shirkad keli gacanta ku hayso waa one or single sidoo kale markaan ku eegno muxuu ahaay type of product-ga ama nooca wax soo saaraan pure competition waxaa la waa homogeneous haddii la leeyahay meeshan waxaa ka jira tartan saafi ah waa in waxa lagu tartamaya wax isku mid ah homogeneous waa inay product kala soo saarayaan laakiin monopolistic competition waxaa la waa differentiated waa isku mid laakiin waxoogaa waa yar kala soocayeen yar baa laga kala garanaya oligopoly-na homogeneous iyo differentiated labada way noqon karaan laakiin pure monopoly-ga waa unique
waa gaar shirkadani waxa ay soo saartay keligeed baa soo saartay no kala services wax ku dhow oo bedelo lagu bedelan karaana ma jiraan sidoo kale xakamaynta qiimaha markaan eegno suuqyadan pure competitionka waa nan waxay ka dhigantay cid qiimaha jaangoysa oo gacanta ku haysa ma jiro monopolistic competition waxay ka dhigantay dhinac waxaa laga in lagu hayo qayb ka mid ah inay gacanta suuqa la goyn karaan laakiin waxa didan yahay aad boqolkiiba boqol si dhammaystiran ayuu gacanta uma hayaan oligopoligana waa limited by mutual interdependence and collusion xalay qiimaha waxaa xadida interdependence ama isku tiirsanaan shirkadahan ka dhexeeya waxaa laga yaabaa shirkadahan isku tiirsanaanta ka dhexeysa inay qiimaha jaangoyso mararka qaarkoodna qiimaha waxaa jaangoyay collusion waxaa la yidhahdaa waa heshiis ka dhexeeya shirkadahan waa inay shirkadahani ku heshiiyaan in productigaas qiimaha ku iibin lahayn inay qiimaha isku waafaqaan waxaa la waa heshiis sharci darro oo ay qiimaha sare ugu qaadayaan si ay faa'iido dheeri u helaan marka qiimaha lafta collusionkaas go'aamin kara oo heshiiskan sharci darrada ay shirkaduhu ku heshiinayaan inay qiimaha sare u qaadaan si ay faa'iido u helaan baa collusion la yidhahdaa marka collusionkaas laftiisa uu go'aamin karaa qiimaha oo qiimaha saa ka dhigna ku heshiin kara pure monopolyga laakiin significant waxay ka dhigan tahay price controlka xakamaynta qiimaha waa si weyn ayuu suuq u xakameynaya oo halkaas shirkad keliya ayay si dooni u go'aamin kartaa sidoo kale condition of interest waxaa la yidhaha soo galitaanka ama xaaladda ama shardi soo galitaankana markaan eegno waxay ka dhigan tahay pure competition waa very easy aad bay u fududahay inaad soo gasho monopolistic competitionkana waa relatively easy kuwan kale markaan barbar dhigno waa uu ka fudud yahay sida pure competitionkana uma fududa oligopoligana waxaa la yidhi waxaa jira considerable barriers or obstacles caqabado la arki karo ayaa taaban ayaa jira pure monopolygana in la soo galay waa blocker wuu xidhan yahay suuqan dad gaar u xidhan yahay tusaalayaasha ay suuqyadan kala yeelan karaan meelaha ka dhici kara waxaa ka mid ah tusaalahan pure competition waxaa uu ka dhici karaa muxuu agricultural products ama wax soo saarka beeraha kan kale monopolistic competitionka dharka iyo sidoo kale kabaha iyo waxyaabas ka dhici kara oligopolyga midka ay shirkadaha keliya ay gacanta ku hayaan oo ka dhici karaa muxuu ahay birta iyo sidoo kale automobileska ama baabuurta waxyaabahaas pure monopolyga inta badan meelaha ka dhaca waxaa ka mid ah local utilities ama adeega maxalliga ah adeegyada bulshada sida tusaalahaan oo kale korontada iyo muxuu ahaa biyaha iyo waxyaabaha waxaa laga yaabaa shirkadaha yar keligeed inay ay gacanta ku hayaan marka halkaas waxaa ku dhammaaday cutubkii shanaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu